maalinta 18 May walaalwa maalin weyn oo maalin qaran aniga si gaar ah taaba ay iidda saddexaad weeyaan dadka iidda saddexaad ka dhigtaan maalinta 18 May ay noqoto way farxadda shucuurta maalinta waxaan maqlaa heesaha qaranka markaan maqlo ee wadaniyada taabanaya aad baan mooshinkaygu u dhaqaaqaa moogti waxay iga dhigan tahay maalintan May runtii waa astaan qaran oo ku waajib ah cid walba in markaa oo magaranaysaa dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland u dhalatay inay xusto oo xiskeeda weynaysiiso daliya dibadba jaaliyadaha dalka dibadda ku nool iyo magaranaysaa dalka gudihiisaba dal kasta wuxuu leeyahay maalin uu dabaaldego oo runtii dastuurkiisa iyo magaranaysaa shuruucihiisa ku jira oo caalamka la wada yaqaan markaas daraadeed kale anaguna tii weeyo inaan weyneyno inaan xiskeeda maalinka xaqeeda siino maalintani waa maalin nooga duwan bulshada Soomaaliland maalmaha kale iyo bilaha kaleba waa maalin aan aad iyo aad u sugeyno in badan inaanu ka qayb galno oo aanu xusno in badan soo kala goobaha waxbarashooyinka iyo meel kasta loo fasaxo si maalintaasi loogu muujiyo bulshada doorka ay ku leedahay May aniga marka waxa weeyaan maqlo waxaan xasuustaa taariikh aad u facweyn iyo maalin ay noqotay farxadda dadka Soomaaliland oo dhan qulubtooda ku soo dhacaysa oo isbedel weyn ka dhacay geeska Afrika isbedelkii ugu weynaa marka waxaan oran karaa waa maalin wadan xornimadiisa si yar fudud ku lumiyay si adag u ku soo ceshaday waxay ka mid tahay maalmaha marka anigu shakhsiyan aan iska hadlo maalmaha ugu muhiimsan sanadka ama inta celebrationka dalka waxa ka dhaca maalinta ugu muhiimsan maalintaas oo kale waxay cajiib ku tahay oo ay qiimo gaar ah samaysaa waxa jira sheekooyin waxa jira sawirro laga helaa waxa jira waxyaabo badan intaas oo kuno aspect markaad ka eegto cajiib noqdo mustaqbalka ayaa runtii maalintaas ay qiimo leedahay marka imika tan sanadkan 3 bilood ama 2 bilood ka hor baan isu sii diyaariyay inta meelada aan tagayo sawirada aan qaadayo sanadkii hore waxay kaga duwanaan doonaan haddaan documentary sameynayo waxa uu story-gu noqon doono marka countless stories baad helaysaa marka waxa maalintaas maalin qiimadeeda la weeyay maalinta 18 May waxay tahay maalin aad u qaaliya waa maalin dhalinyaradii horena u ah xasuus dhalinyaradi dambana u ah rajo oo anigu ka mid ahay iyo dhiirigelin aniga ahaan marka la eego waxay ka duwan tahay inay tahay maalintii calanka Soomaaliland hay'adda la soo noqday ee xorriyaddii 1960kii Soomaaliya lagu daray laga soo gooyay waxay naga suntan tahay wadan kasta wuxuu leeyahay maalin gaar ah maalinta gaarka ayaa aniga naga suntan tahay oo maalinta si gaar ah la oran karo qarannimada waa loo xasuustaaba ama wadan jacaylkaba maalinta qof kasta laga dareemo qofku wuxuu ku muujin karaa shucuurtiisa wuxuu ku muujin karaa maxay ahayd gaadiidkiisa guriyihiisa xaafadaha qof kasta oo ka dareemaysa maalintaas waa maalin maalmo aad nooga duwan maalmaha kale oo dhan maalinta ugu qaalisan ee shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland leeyihiin maalintan xorriyadda dib ugu soo noqonay maalin qaali ah maalin aan shucuurteeda soo koobi karin maalin farxad leh maalin aanu dadka iyo caalamka iyo shucuurta adduunka tusno inaan kaga duwanahay tahay maalinteeda la aqoonsaday dal walba wuxuu leeyahay xilli uu ku faano oo xasuusta soo bandhigo marka annaga waxay nooga dhigan tahay maadaama aanu reer Soomaaliland nahay maalin weyn oo aad aanu u xuseyno ayay nooga dhigan tahay waana ku faraxsanahay aniga farxad ayay muujinaysaa ka soo gudiyaan ka soo gonay Soomaaliya marka aniga oo yar ayaan 1987 Muqdisho tagay 88kii halkan aan ka qaxnay marka aniga waxay tahay farxad akala soo noqonay iyo dhibaatooyinkiina soo maray remember waan xasuusanayna when I was a young markii aan yaraa ayaan xasuusanaya dhiigmayga kore rabadaan bay ku dhacdo dadkiina iska soo mareen ma socon karin laakiin dhiigmaygan maanta farxad badan baa aad loo muujinaya waa la soo dhaweynayaa dabaaldega waad ka dareemaysaa dadku ay faraxsan yihiin laakiin bariga hore waan yaraa TV-ga mooyaan laakiin dabaaldeg caadi ah ma arki jirin waa maalinta calanka kor loo qaadayo waa maalin farxad weyn inooga dhigan tahay qiimo weyn buu ku fadhiyaa calankan dhiig baa loo shubay maxaan ku dhahay waa loo saalgamay duurka loo galay waa kaas saddexda midab buu kala muujinayaa nabadgelyadii iyo maxaan ku dhahay barwaaqadii iyo taa hoose tii looga duurka loogu galay ahayd oo dhiigiyaha والله horta 18 May waxayna maalinta xorriyadda waa maalin cusub oo laga dareemay inay challenge jiro maanta yani bilowga la dhisiyo dawlad cusub waa maalin xorriyad oo maalin hawadii la dareemay xorriyadda To me 18 May represents
Somaliland spirit. It's Somaliland's National Day. It's a day that everybody comes together to celebrate one common thing. It is a day of union, a day of resilience, a day of community. It felt like just a wonderful celebration. I was so happy to be a part of it, to witness it.